السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله واحد دب إيسو عليه ما شاء الله. أولا إلهي درتي سيدين جعلها يوم الصوماليات ميلا لالميشي جوغان ربي سبحانه وتعالى وحو إنو الشيغي الدونك أنك آنكو سوغان هاي إنان أفر عدو لينا ما أنت أفرت عدو أيا لك الفهم لا أيه الدنيا دا آنكو سوغان هاي إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هاي أفر عدو أيا ليدا هاي ما أنت أدونك أنك آن جوغنو مركنا لدوها أفر عدو أيا ليدا هاي وحا معقول إنان أفر تاس عدو sidaan uga gaashaaman lahayn ama sidaan uga difaacan lahayn ama sidaan uga diyaar garoobi lahayn inaan ku dadaali karno balse laakiin afartan cadow hadda oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay ma ahan ilaa ninkoo Ilaahay fahansiyo amba inuu Ilaahay ninkoo ka badbaadiyo mooyaane si kale looga badbaadi karo ma lahan. walan waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga badbaadiyo waxa inoo soo socdo waxay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay afar cadow ayaa leedihiin adduunyada korkeeda. si fiican dhagihiina ii siiya si fiicanna aan isku maqalno codkeygana isku daya inaad meel dheer gaarsiisaan si aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga cabsano oo adduunyada maanta cadowga noo joogo aan u aqoonsano يعني سامبري آخرة إله نوجو بدبادي أفرت عدو وما أنت الدنيا ذا إله سبحانه وتعالى إنه وش يجي وما أنت إن للد قالوا أباهن ووح إلهي إنه شيء ما أهن وح النجا عن كان سني إله سبحانه وتعالى أيدي القرآن كأه بين منقطه بل سلاكين ومد ما أنت جوكتو waxyaabaha ay adeegsadaan boqolkiiba 90 been way naqan karaan balse Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kelmadiisa been ma naqato. qaala Allahu ta'ala ay qaala rasuulullaahi meeshaad ku maqashaan wuxuuna leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qaala Allahu ta'ala ay qaala rasuulullaahi meeshaad ku maqashaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaana la samacnaa wa adacnaa dhaha hadhihina samacnaa wa casayna. marka insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay cadawga koowaad maanta adduunka inoo joogo oo inuu nafasaadiyo rabo inuu yahay shaydaankana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay inna ash-shaydaana lakum aduwwun fattaqiduhu aduwwa. shaydaan dan kala malahan nabiyullaahi aadam alayhi salaam waa kii jannada ka soo bixiyay waa kii dhagarta u maleegay waa kii xumaha la raadiyay oo maanta annagana saasoo kale inuu naar noo geeyo jecel. cadowga koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay muxuu yahay shaydaanka inna ash-shaydaana lakum aduwwun fattaqiduhu aduwwa. Ilaahay wuxuuna leeyahay shaydaanku wuxuu idin yahay cadow iska ilaaliya. kan koowaad waa inaan shaydaanka ka taxdirnaa iska ilaalinaa. tan labaad adduunyada maanta aan joogno Ilaahay wuxuu inoogu sheegay afartaas cadow haddaad ka badbaadid Ilaahay badbaadis ayuu ku siinaya. tan labaad maxay tahay naftaada waa cadow inna an-nafsa la amaaratu bis-suu ayuu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. nafta meel xun ayay ku hogaamisaa mar walba kuma tusto ma jeclo inaad waqti dambe aad soo kacdid qabowga dhacaaya aad weyseysatid kutaab aadatid aad aqrisatid oo aad khayrka ku xirintid ma jecla nafta waxay jeceshahay in la seexdo liska ciyaaro been laga sheekeeyo xumaha laga sheekeeyo adduunyadana sidii raba loo dhaqmo آخر إلهي با مركز ميشو نجينا يوق نفط وحي جعشها إنه عيداس أيضا الله نقبل بادي إن شاء الله تعالى إن نفتنا حكمينه
aan wanaaga ku xakamayno oo runta ku xakamayno ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajayno insha allahu tacaala tan koowaad maxay ahayd shaydaanka tan labaad waa maxay nafta tan saddexaad adduunyadu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay falaa taqurannakum alxayaatu addunyaa walaa yaqurannakum billaahi alquruur maanta sida aan ognahay adduunyadu waxay nala tahay waa waxaan laga tegaynin oo kale sida dadka qaar ay u dhaqmaan balse adduunka aan joogno waa laga tagayaa cid walba maanta taagan adduunka way ka tagaysaa adduun aad ka tegaysidne inaad dabaq aad u dhisatid amba xumaan aad kaga sheekaysid waxaa ka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ka cabsatid aa ugu dhowaatid runta iyo wanaagga iyo horumarka waddanka inaad uga sheekaysid waayo adduunyadu waxaa ognahay maanta cid walboo joogto maalin unbaa laga wadayaa maalinka lagaa wadaayo ha naqato maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kaa yahay maalin meesha laguu wado meel lagaaga faraxsan yahay ee tahay maalin aad tahay qabriga aad gelaysid qabri adiga wanaag kaaga horeeyo maalinta karfanta lagugu xiraayo sida aan la soconno maanta dad badan aan jecelnahay asxaabteena ah ayaa horteena ku geeriyoodeen dad badan aan jecelnahay asxaabteena ah walaalaheenna ah garabkeenna ah ayaa horteena ku dhaawacmeen marka tan kale adduunka maanta aan danaha aan ka raadinayno aan horumarka aan ka raadinayno aan guusha aan ka raadinayno waxa ka wanaag badan inaan aakhirada aan u shaqaysanno maalinka qabriga nala geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu noo badbaadiyo tan koowaad maxay ahayd shaydaanka tan labaad nafta tan saddexaad adduunyada tan afaraad muxuu ku sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala hawada ayuu ku sheegay hawadana maanta waxa adduunyada qaribaayo oo ummadda bini-aadinka dhuminaayo duurka u diraayo oo aakhirada hilmaansiinaayo oo maanta adduunkan heer gaar intay leeyihiin unbay ka tagayaan maanta heerka aniga aan raadinaayo waxaa iiga fadli badan maalinta qabriga laygeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu raalli iga noqdo marka hawada maanta annaga nahayso waxaa ka mid ah inaan gaaryo cad aan wadanno inaan dabaqyo dhedheer aan dhisanno inaan adduunka korkiisa aan ku kibirno aan sidaa doonno u dhaqanno balse ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay falaa taqurannakum alxayaatu dunya adduunyada soo ma ahen afara'ayta man ittaqada ilaahahu hawaa afara'ayta man ittaqada ilaahahu hawaa hawada ninka raaco waxay geysaa meel xun ayay geysaa hawadaada maanta haddaad raacdid kuma geynayso guri wanaagsan kuma sii diyaarinayso guri villo ah qabriga kuguma diyaarinayso hawadaada haddaad raacdid gaari cad qabriga kuguma keenayso hawadaada haddaad raacdid diyaarad qabriga inay kuugu soo dejiso kaama duulinayso adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay ummaddiisaan midka runta sheegaayo intaas halkan waxaan uga baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan afartan cadow oo ilaahay noo sheegay aan ka digtoonaano waayo afartaas waxa waaye afarta annaga maanta ilaahay inuu naga badbaadiyo mooyaane annaga aan iska badbaadin karin waayo cadow adduunka kula joogo waad iska badbaadin kartaa maanta haddii lagu dhaho haye inta cadowga argagixisada al-shabaab ayaa soo gashay waxa macquula inaan laga hortago cadowgaas meeshooda lagu baabi'iyo oo meesha looga sii socdo balse laakiin shaydaanka ma aragna annaga cid maanta shaydaan waa arkay waan la kulmay waa la fadhiistay dhihi kara ma jiro adduunyada waxa noo muuqata quruxdeeda keliya laakiin balse waxa laga helaayo faa'iido ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay adduunyada yacnii adduunyada waxa laga helaayo waa lanoo sheegay faa'iidaad ah waxa khasaaro lagala kulmaayona waa lanoo sheegay faa'iidadeedu waxay tahay
wanaaga alla subxaanahu watacaala ku faray haddaad ku dhaqantid ma ku dhacaysid yacni xumaha ee adduunyada ay jeceshahay nafta haddaad xakamaysid aad xirig ku xirtid aad dhahdid aniga ilaahay baa i wato gaajada waan ku sabrayaa dheregta waan ku alxamdulilah ayaan leeyahay waddanka ayaan ka shaqaynayaa argagixisada al-shabaab ayaan ka hortagayaa dhibaato waddanka waan ka ilaalinayaa hadday niyaddaada ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala kor ayuu kuu qaadaya waayo adduunyada maanta dhibaatada taalo waxaan maanta danteena ahayn ayaan ku daalaynaa walaalayaal waxaan iskaga digaynaa inaan aakhirada aan u shaqaysano adduunka insha allahu tacaala marka halkaan waxaan ka salaamayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan marka afartaas cadow aan iska ilaalino waayo adduunyada maanta annaga waxaan ka qaadayna malahan waxaan diyaar u nahay geerida ayaan diyaar u nahay cadowga dhagarqabayaasha al-shabaab inaan ka hortagno ayaan diyaar u nahay marka insha allahu tacaala halkaan waxaan ka salaamayaa madaxda meel allaale meeshay joogaan mansab walba ay ku fadhiyaan darajo walba ay ku joogaan ayaa halkaan ka salaamayaa marka waxaa muhiim ah inaan fahamno afartan cadow oo ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegay waa inaan iska ilaalinaa maanta sida aan ognahay adduunyo jaceyl wax ma tarto adduunyo haddaad jeclaatid aakhirada hilmaantid adduunku waa wax laga tagaaya meesha aan laga soo naqanaynin in la jeclaado ayaa muhiima maanta weli ma aragnay nin dhintay oo noo soo noqday mar labaad noo soo noqday noo imaaday weli ma aragnay ii soo qorabal qof arkama idinku jiraa qof geeriyooday la qaaday qabriga la geeyey allaha u naxariista aan dhahnay oo qabriga aan uga soo tagnay oo mar labaad noo soo noqdo noo imaaday weli ma aragnay annaga cid aragta ma jirtaa ii soo qorabal ciddii aragtay ii soo qora lama arkin maantana ma sugayno waayo meesha loo socdo ayaa sharaf badan meesha laga tagaayo waa meel maalmo gaaban la joogaayo maalmaha yar meesha aad joogaysid ha naqanin mid ku kibro mid sidoo raba u dhaqmo maalmaha aad joogtid waxaad doontid suubi laakiin maalmaha dheer aan laga soo naqanaynin ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa waxaa lala tagayaa waxaad adiga qaadatay maanta haddaad wanaag aad kala baxdid adduunkan adiga unbuu ku anfacayaa waxaan halkaan uga sheegayaa ummadda muslimiinta meel allaale meeshay joogaan awalan horta aniga ma ihi mid caalim ah ma ihi balse labadii xabbo aan culummada aan ka maqlo ayaan halkaas la soo istaagaa marka waxaan jeclahay dadka culummada ah wanaagsan khayrka si fiican ilaahay u fahansiiyey oo bulshadii maanta inay wax noo faa'iideeyaan loo baahnaa inay naga gaabiyaan oo xoogaa ma ahan kulligooda maasha allah maalin walba waxaan dhagaysanaa culummo wanaagsan wanaagga ka sheekaynayso khayrka ka sheekaynayso marka waxaa idin dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan afartaas cadow inaan iska ilaalino aakhiradeena aan ilaalsano waayo meel aad ka guuraysid haddaad u qaadatid hantiyaan adduunyada ugu suubsanayaa oo aakhiradana aad aadaysid wallaahi oo bilaahi oo tallaahi allaha nafsadeeda gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartay qofkaas khasaare ayuu ku sugan yahay khasaaro aan laga kabanaynin ayuu ku sugan yahay hataa khasaarada waxay kala tahay mid laga soo kabto iyo mid aan laga kabanaynin tan laga soo kabanayo waxa ka mid ah maanta nin dukaan leh hadduu ilaahay masiibo u keeno dukaankii ka gubto amba dhibaato ay ku dhacdo waxa macquula ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhaqaalo kale soo geliyo oo ka kabto beri maalmo kadib ninkii dukaan kale ilaahay inuu u sahlo balse laakiin adduunyadan mar haddaad ka tagtid oo meeshii laguugu talagalay aad tagtid waxaad qaadatay unbaa ku anfacaya haddaad qaadatay saxay xun haddaad qaadatay
oo adduunyada aad ka qaadatay oo afarta aan soo sheegnay mid ka mid ah haddaad qaadatay khasaare ayaa ku sugan tahay walaalkay Soomaaliga ah walaashay Soomaaliyada ah aan iska ilaalino afartan cadow shaydaanku ugu horeeyo adduunyada ku xigto nafta iyo hawada afartaas aan iska ilaalino intay afartaasna daba socotane hormar ma gaareyno ilaahay iimaanku umba hor nooga sii qaadayaa naarta ayuu ilaahay hor noogu sii fogeynayaa anagana ma fahmayno ilaa waxa fahamkii maanta naga qaaday yacni isku xirihi oo bini aadamkii maanta waxa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ummadiisa inay isku xirmaan maanta waxa loo baahan yahay ciidanka iyo madaxda inay isku xirmaan waxa maanta loo baahan yahay ciidanka iyo shacabka inay isku xirmaan waxay iskugu xirmi karaan marka Allah subxaanahu wa tacaala aan ka wada cabsano aan runta aan sheegno oo kelmadii khayr aan maqalno aan umada la soo wadaagno insha Allah tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa Soomaaliya oo wanaag ka shaqeynayso horumarka ka wada shaqeynayso kulligood runta ka wada shaqeynayso aanan dhibaato isku qabin oo xumaha maanta aan ka sheekeynayno aan ku bedelano wanaaga inta xumaan ka sheekay laheen waxa ka fiican kelmad wanaag ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo raalli kaaga naqanaa inaad ka sheekaysid maasha Allah waxa idin leeyahay Soomaali meel allaale meesha joogto Soomaaliya noolaato idinkana waxa ii soo qortaan SNA guul ii soo qora SNA guul waxa idin ka codsanayaa walaalayaal ilaahay dartiis ayaa idin jeclahay kelmadahaas hadda ka horna waan ka hadlay maantana mar labaad ayaan ku soo celiyay waxaan leeyahay adduunyo aan ka tagayno oo maanta anaga gurigeena aanan ahayn guri maanta yaanan ka dhiganin guriga anaga aan leenahay waa kan loo socdo aan u shaqeysano wanaaga aan ka shaqeyno wadanka wanaagiisa aan ka shaqeyno wadanka horumarkiisa aan ka shaqeyno wadanka guulihiisa aan ka shaqeyno ciidanka qadarin aan qadarinayno aan soo amaagno ciidanka maasha Allah ma ahan ciidanka maanta mid shacabka nacab ma ahan maasha Allah ilaahay baa marqaati naga ah umada Soomaaliyeed meel allaale meesha joogto ilaahay dartiis ayaan u jecelnahay umada Soomaaliyeed meel allaale meesha joogto ilaahay dartiis ayaan u jecelnahay balse waxa loo baahan yahay wanaag in laga wada shaqeeyo xumaha la iska ilaaliyo adduunka laga tagaayana inaadan naqanin adiga mid adduunka ku kibray waayo kibir adduunka ah ku kibirtid waxa ka daran maalinka qabriga lagu geeyay dhibaatada meesha laga la kulmaayo qabriga waxa lagu tilmaamay kuleel mar walbana waan ku soo celiyaa qabriga asigana afar ayaa ka jirto markii hore maxay ahayd afar ayaa cadow nagu ah qabrigana afar asigana ayaa ka jirto afar oo maanta adduunyada dadka taagan aanan ku xisaabtamaynin aanan ogeyn oo indhaha istiray oo mid walba maanta midka kale wuxuu leeyahay war adduunkan soo qabo laakiin adduunyo aa qabanaysid waxa kaaga fiican afartan labaad ila dhageyso aan halkaan idin soo marin doono insha Allah taala qabriga waxa ka jiro afarta qabriga ka jira waxa kamid ah kuleel ayaa ka jira qabriga ilaahay kuleel noogama dhigo intii hore u dhimatayna Allah u naxariisto qabrigana Allah u qaboojiyo cid maanta jecel ma jirto qol kuleel ah in lagu xiro ama lagu xabiso inuu ku dhex jiro ma jeclo maanta foorno cid galaysa male qabrigan sidaan ognahay waa meel yar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka kaliya oo loo diyaariyay oo cariiri ah meeshaas oo cariiriga ah haddana ayadoo kuleel ah haddana lagu dhahay ka waran qabriga kuleel ayaa ka jiro qabriga cariiri ayaa ka jiro qabriga cidla ayaa ka jiro qabriga mugdi ayaa ka jiro afartaasba qabriga ayay ku wada kulmeen waayo waxaan ognahay adduunyada marwaxad ayaan helaynaa meel hawle ayaan helaynaa meel wanaagsan ayaan helaynaa kuleelka wax aan ka hoos galno ayaan helaynaa cariiri maanta kuma sugnin intii ilaahay subxaanahu wa tacaala taqaano balse laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay i aqoonso anigi i rumeey i aqoonso wanaagana ka sheekay cariiriga iyo cidlada iyo mugdiga iyo kuleelkana anaa kaa badbaadinaya maanta walaalayaal hadday adduunyadii afar kulmay oo qabrigana afar ku kulmay
oo annagana adduunyada aan jeclaanay bal ka warama maxaa la dhihi karaa marka waxa idin leeyahay adduunyada yeesan naga xoog badinin aakhirada aan u shaqaysano ciidankana aan amaagno SNA guul halayso qoro ma sha Allah ما شاء الله walaalkay aad iyo aad ayaa u maadsantahay anaga dhan Allahna xafido Allahna ilaaliyo waayo waxaan ognahay adduunyada maanta anaga isma ilaalin karno ilaa nafta tan siday u jiifatay ayaa nafta looga qaadi karaa ruuxa dadka maanta geerida meelaha kale ka raadinayo boqolaal waxaan naqaanaa ayagoo jiifteen nafta laga qaaday qiso hadda ka hor muddo adii laga joogo 12 sano aniga waxaan ahaa nin ka shaqeeya badda kalluumaysta ahaa xilligaasna ma aanan joogin wadankan waxaan jiray magaaladaas Yemen annagoo 12 qof ah oo habeenkii u diyaarsan inaan shaqo ku kacno subaxii ayaa yar saaxiibkay Allah u naxariisto jannatul firdaws ala Allah geeyo oo aan meel wada seexanay oo aan wada sheekaysanay 7 saac habeenimo markay ahayd aan seexanay oo 9 saacna inaan shaqadii u baxno ee niyadeena tahay yarkii asoonan dhaqdhaqaaqin oonan waxba aanan ka dareemin 9 saac markaan kicino aan isku daynay yarkii meed buu ahaa marka naftaan ma ahan meel loo jiro ma sheegi karno adigoo jiiftid ayaa laga qaadi karaa adigoo socota ayaa laga qaadi karaa adigoo ordeysid ayaa laga qaadi karaa adigoo fadhisa ayaa laga qaadi karaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh nafsada amarkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh marka halkaan waxaan kala hadlayaa dadka maanta adduunyada jecel adduunyo jaceelku waxba ma taro aakhire in la jeclaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo dhawaado maanta annaga waxaan aragnaa cadawga argagixisada al-shabaab inay ummadii dhibaateeyaan ee haddana sheegtaan inay dhiigeena jannada ku tagaan annagana waxaan aaminsanahay ayaga dhiigooda inaan jannada ku tagayno waayo ayaga waxay caadeysteen inay ummadii masaajidka ugu galaan ay ku dilaan taas islaamnimo ma aha marka waxyaabo badan ayaan ka hadalnaa ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogto hadallada aan ka hadlayno yaanan la liidin yaanan hoos loo dhigin hala sheer gareeyo ummadda muslimiinta meel allaale meeshay joogaan la gaarsiyo waa waxa anaga u baahanahay maanta wanaag haddaan aniga suubiyo anigoo ay anfacaya xumaan maanta haddaan suubiyane aniga unbay ii taallaa khasaaradeeda aniga unbaa qabriga ku arkaayo marka inta maanta xumaha adduunyada ku jecel ayaa waxaan dhihi lahaa maalinta aakhiro sidaan ognahay qabriga nin aaday ma soo naqanayo xisaab unbaa u bilaabanayso meeshi unboo ka sii soconayaa marka adduunyo aad ku raaxaysatay waxaa ka fiican aakhiro adood ku raaxaysatid aakhirana waxaan ugu raaxaysan karnaa inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano aan cadawga argagixisada al-shabaab aan si dhab ah aan uga hortagno wadankana aan run ka sheegno wanaagiisa insha Allah ta'ala horumarka wadankana wuxuu ku jiraa in runta la isku jeclaado runta maanta dadka sheega badanaa 90% way jecel yihiin balse laakiin 10 ayaa nacab 10kaasna waxaan dhihi lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo soo noqdo runta laga sheekeeyo wanaaga laga sheekeeyo horumarka wadanka laga sheekeeyo guulaha wadanka laga sheekeeyo nin walba ninkoo dhaamo wanaag oo ku dhaamo oo u sheegi kara waxa u sheega insha Allah ta'ala nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wuxuuna leeyahay ballighu anni walaw aaya nin walbo hal aayad yaqaano ha gaarsiyo walaalkii kale marka insha Allah ta'ala inaan wanaag ka wada shaqeyno aan qeyrka isku sheegno oo adduunka aan ku suganahay inaan ka tagayno ay soo xasuusino mar walbo waa wax loo baahan yahay waad ii jeedaan jiifkeegi ayaan ku jiraa ma urdi kari waxaan ku hurdeynin waxaan ogahay cadawga argagixisada al-shabaab intuu adduunyadan maanta ku sugan yahay hurdadeeda habeenkii isma raacayso dad bay hurdadooda israacdaa dad baa maanta adduunyada hurdadoodana way isku raacdaa dhaqaalana inay raadiyaan isku dayaan
aakhiradina waa la iloobay afarta hore aan sheegnayna waa la iloobay afarta dambe aan sheegnayna waa la iloobay meel loo socdan lama ogo war waxaa idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada adduun laga tagaayo maanta ha u diyaargaroobin inaad iska joogaysid adduunyada ha u diyaargaroobin ogaaw caawa haddaad seexatay beri ma gaarahay saas dheh ilaa nin maanta dhihi kara male aniga xilligaan hadda idinla hadlaayo haddaan caawa subaxi inaan gaarayo ma sheegi kari ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og dad baa laakiin maanta waxay shaqo ka dhigteen adduunku inay joogayaan ayaa u malaysaa dadaan ka tegaynin war adduunku waa laga tagayaa ilaah laga cabsado wanaagga ha laga shaqeeyo ciidanka ha lala shaqeeyo horumarka waddanka ha laga shaqeeyo guulaha waddanka ha laga shaqeeyo sharafta maxay ku jirtaa maanta dowladnimada aan haysano waa sharaf ilaahayna siiyey marka wanaagga iyo horumarka in laga shaqeeyana cadowga laga hortago shaydaanka liska naaro wixii xun allah naga qabto wixii wanaagsan allah na siiyo intii waddanka dhibaatada ku wado ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u barino aan u duceyno insha allahu tacaala maanta ma ahan maalin lis habaara ma ahan maanta waa maalintii laisku duceyn lahaa maanta waa maalintii laisku duceyn lahaa insha allahu tacaala soomaaliya meel allaale meeshaa ku sugantihiin waxaa idin leeyahay ilaahay dartiisa aa idin jeclahay SNA guul ii soo qora insha allahu tacaala soomaaliya ha noolaata ii soo qora insha allahu tacaala waa idin salaamayaa waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka meel allaale meeshay ku nooshahay soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahna fahansiiyo khayrka allahna fahansiiyo wanaagga allahna fahansiiyo wanaagga horumarka dowladnimada allahna fahansiiyo wanaagga oo maanta annaga aan jecelnahay inaan argagixisada al-shabaab aan uga hortagno allahna wada fahansiiyo waayo cid keliya maanta uma baahno wanaagga ummadda soomaaliyeed oo dhan wanaagga way u wada baahan tahay maanta soomaalida waxaa lagu tilmaamaa qaxwada sokorta haddii lagu daro oo la kabado waa qareer balse laakiin markii qaado loo qaato lagu walaaqo waxay noqonaysaa macaan soomaalidii maanta khayrkii waa ka buuxaa balse aniga ma ihi nin caalim ah labadii xabo oo aan soo maqlo ayaa idinla imaadaa waxaa loo baahan yahay dadka caalimka ah culummada ah aqoonta ilaahay siiyey garaadka ilaahay siiyey darajada ilaahay siiyey oo warasatul anbiyaa la dhaho oo maanta loo nisbeen karo yacni dhaxalkii oo nebiga dadka ka agdhowaa oo wanaaggaas wax ka sheegi karo mar walba inayna guwaabiyaan ee wadaniyadda nooga sheekeeyaan guulaha waddanka nooga sheekeeyaan qabriga iyo qiyaamahana soo xasuusiyaan si annagana aan ugu dhiiranno cadowga al-shabaab inaan ka hortagno insha allahu tacaala SNA guul ha laysoo qoro insha allahu tacaala hidaaya maasha allah aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaashay qaaliga ah allah ku sharfo allah ku wanaajiyo maasha allah SNA guul maasha allah waxaa idinka rabaa aniga ciidanka in mar walbo SNA guul la ii soo qoro cadowga al-shabaab argagixisada halala dagaalamo in la ii soo qoro ilaahay aan ka wada cabsanno aan dhahan annagoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga dhan asaana abuurtay adduunkana asaa naga qaadaayo cid kale naga qaadi karta ma lahan waxaa loo baahan yahay geesinimo iyo adeeg iyo karti in meesha adiga aad taagan tahay inuu meel ilaahay ku keenay inaad ogaatid berina ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa ceshan karo hadalkana waxaa loo qaataa wanaagga ayaa loo qaataa mooyaane xumaanta looma qaato dad baa maanta hadallada xumaanta ah qaataan oo jeebabka gashtaan oo la wareegaan baraha bulshada ayagana waxaan dhihi lahaa hadal xun intaad qaadan lahayd hadal wanaagsan qaado kaas unbaa wax ku taraya insha allahu tacaala soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu